ciidanka xoogga dalka Ogaadeniya waa daljiraha u taagan danaha shacabkooda waa difaaca dalka hooyo xoogga dalka Ogaadeniya sida aad warbixintaasi ku maqlayseen guluf xoog leh oo meelo badan ka dhacay ayay ciidamada qalabka sida ee xoreynta Ogaadeniya ku ekeeyeen saldhigyo badan oo ay wayaanuhu ku lahaayeen magaalooyinka waaweyn ee Ogaadeniya xaaladda kaligii taliye Sanaawi iyo xukuumaddiisuna waxay haatan maraysaa nin daad qaaday xumbo cuskay halganka Ogaadeniyana uu marayo heerkii ugu sarreeyay ee uu abid gaadho haddaba gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya mudane Maxamed Ismaaciil Cumar oo aanu arrimahaasi ka wareysanay ayaa su'aashii ugu horeysay ee aanu weydiinay waxay ahayd bal inuu warbixin kooban naga siiyo guud ahaan xaaladda waddanka Ogaadeniya bismillahi raxmaani raxiim waxaa weeye marka ugu horeeya waan idin salaamayaa radio xurriyo dadaalka faraha badan ee aad wadiin aad ku gaarsiinaysiin muxuu ahaa duruufta shacabkiina iyo halgankiina aad ku gaarsiinaysiin caalam weynaha gaar ahaan shacabka soomaalida Ogaadeniya halganaya waxa weeye Ogaadeniya waa meel laba quwadood ku dagaalamayso quwad dulmi ah oo dulmiga wada oo matilaysa madowga iyo xaqdarrada iyo muxuu ahaa xumaanta matilaysa iyo quwaddii gobonnimo doonka ahayd oo ciidanka wadaniga xoreynta Ogaadeniya uu horseedayo iyo shacab weynihii reer Ogaadeniya ayaa ku halgamaya hardankaas halkaa ka dhacaya wuxuu keenay inuu cadowgu adeegsado طريق كستا oo ku baabi'in karayo shacabka wax uunan adeegsanayn kufsi dil xarig joogta dhac joogta cunaqabatayn iyadoo iska joogta oo muddadii 3 sanadood u dambeysay aan laga dabcinin dadka oo lagu gaajaynayo hase ahaatee waxay taasu keentay runtii in uu shacabkii reer Ogaadeniya iyo ciidankiisa oo isku duuban moraalkoodii ay kor u dhacday isku kalsoonidoodiina ay korodhay sababtoo ah dhibaato kasta markay soo marto walbahaar baa imanaya waraar may sida noqotaa laakiin markay ka gudbeen oo ilaahayna maadaragtay ku gargaaray waxay ogaadeen in wax loodin karaya uuna jirin mar haddii ilaahayna uu garab taagan yahay iyaguna isku tashadeen halgankii uu koray wuxuu sii marayaa yani hadda maanta shacab dalkii Ogaadeniya oo dhan halgankii hubaysnaa shacabka reer Ogaadeniya ciidanka jiida hore naftuurayowga ay wadeen uu gaaray Ogaadeniya oo dhan wuxuu hadda garaacayaa albaabada muxuu ahaa cadowga iyo saldhigyadiisa waaweyn mudane gudoomiye ku-xigeen waxaan ogsoonahay in ciidamada qalabka sida ee xoreynta Ogaadeniya ay dagaalo waaweyn oo isdaba jooga ay ku hayaan xeryaha iyo saldhigyada ciidamada gumaysiga Itoobiya gaar ahaan 9 bishan waxaa fulay ama ay ciidamada qalabka sida ee xoreynta Ogaadeniya qaadeen howlgalkii loogu magac daray abees marka maxaad warbixin naga siin kartaa waxa weeyaan marka hore dagaalkan waa dagaal sidiisaba aan kala go' lahayn markuu meel uuna ka jirin meel kale uu ka dhacayaa ama dalka gudihiisa oo dhan uu ka dhacayaa dagaalkan ay ciidanka gobonnimo uu la tiigsanayaan cadowga wuxuu soo maray dagaalkanu markii hore in ay cadowgu kibirkiisa iyo isla weynaantiisa inuu raadsado muxuu ahaa ciidanka gobonnimo doonka ciidanka wadaniga xoreynta Ogaadeniya waxaa la soo gaaray waqti la israadsanayo oo barbardhaca hadda waxa weeyaan ciidankii gumaysiga iyo maxaysatadiisii ayaa gacan ku gabada markaasaad la socotiin wuxuu bilaabay inuu tababaro dhuljiif iyo qolyo maaragtay iska maxaysato oo dariiqyada ku gaajaysnaa intuu tababaro oo yidhaahdo ciidan baa tihiin qaarkood la yidhaahdo saraakiil baa tihiin oo darajaa laydin siinayaa inuu shacab weynaha ku gumaado ama looga dhigaba maadaragtay derbi ku gudban ciidankii cadowga isku gudbaan sida ay u bixiyeen muxuu ahaa naftihoreyo dhidid dawrka cadowga yani waxa weeyaan waa dhidid dawrkii cadowga isku gudbayay ee geerida ka xigsanayay taas baa cagta la mariyay marka cadowgu wuxuu bilaabay inuu been aruurad yidhaahdo waxaan la heshiiyey shacabkii reer Ogaadeniya laba urur oo muhiim ahaa oo mid oo nalaf la yidhaahdo iyo waan la heshiiyey marka heshiiskaas oo caalam weynaha ku khaldaya laakiin shacabka reer Ogaadeniya ay og yihiin xaqiiqadeeda inaan heshiis ama oo nalaf lala galay ama urur intuu urur ahaan u jiray dagaalka ka qayb qaadan jiray oo muhiim ah oo dhiibay oo markaa ay ka yaraanayso dagaaladii gobonnimo doonka ahaa iyo darbaaxooyinkii ku dhacayay dadkeenu waa ogyahay laakiin caalamka wararkaa la maqashiiyey in uu
ciidanka wadaniga xoreynta ogaadeynaya uu ficil ahaan ku muujiyo waxaa la qaaday si caadaga ahayd howlgalkaas abees la yidhaahdo abees waxaa loogu bixiyey yacnaa abeesadu habeenkii bay wax mirtaa oo guryaha iyo dadka macnadii waa abees iyagoo habeenkii hurda in weerar lagu qaaday 9 saldhig waa 10 saldhig oo 6 degmo ku kala taala ayaa weerarka lagu qaaday runtii waana la burburiyey waxay ahayd in tuso marna tabarta marna taagta adiguna waad hadlaysaa annaguna ficil qabanayna yani cadowgu hadlaya hadal been buu wadaa laakiin in la tuso ficilka la tuso caalamka muxuu ahaa inay warkan uu sheegaya ay been tahay runtii aad baana darbaaxo dhibaato weyn loo gaarsiiyey saldhigyada waa la burburiyey dib u habayn dambe mooyaane qaarkood cagtaa la mariyey sidii mid garbo oo kale oo BBO da la yidhaahdo waxaa la wixii yaalay iyo kulli cagtaa saldhigaa la mariyey howlgalkaas abees wuxuu ahaa un howlgadii caadiga ahaa soconaya laakiin ujeedadaas leh mudane gudoomiye ku-xigeen ma dhihi karaa howlgalladan isdaba jooga ah ee howlgalkan aad hadda ka shanqalisay abees ugu dambeeyey iyo kuwii ka horreeyey waa howlgallo wata qorshayaal gaara iyo ujeedo gaara laga leeyahay miyaan dhihi karaa waa howlgalladii caadiga ahaa ee kale maya waxa weeyaan ciidanka wadaniga xoreynta ogaadeynaya ma uu qaado dagaal aan ujeedo lahayn dagaalkeen oo dhan baa ujeedo leh ujeedadiisu waa xoreynta muxuu ahaa ogaadeenya in cadowga ilaa muxuu ahaa taakada u dambaysa laga xoreeyo ciida ogaadeenya ee xalaasha ah waxa weeyaan marka howlgalkan ujeedadiisa keliya waxa weeyaan in lagu beeniyo oo si ficila lagu beeniyo warkan been abuurka ah ee Ethiopia ay isugu marxabaysiisay caalamka ay ku khaldayso qarashka ay ku gashay muxuu ahaa shirarka waaweyn ay ku qabatay in lagu beeniyo halgankii shacabka reer ogaadeeya ee jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeeya hormuudaysay inuusan ina isdhimin uu sii karaar qaadanayo weliba inuu magaalooyinka waaweyn ee magaalo goboleedyada gaarisan magaalooyinka gaarisanka maaragtay oo ciidanka waaweyn iyo talisyada waaweyn ay fadhiyaan in maanta aynan xataa ka badbaadi karaynin lana garaaci karayo waktigii la doono iyo sidii la doonaba loo garaaci karayo in lagu muujiyo mudane gudoomiye ku-xigeen taliya Malla Zanaawi waxa uu ku dhawaaqay in uu la heshiiyey qaar ka mid ah beelaha ogaadeynaya maxaan ku tilmaami karaa hadallada noocaasa ee haatan kasoo yeedhaya xukuumadda daalana Ethiopia de waxa weeye intaasu waxay la mid tahay tii la odhan jiray maxay ahayd islaantii dhali weyday aleela ku waalatay waa inuu hadda faashado oo kolba kaadharka felo kuwa sixirayaal iyo faal uu raadiyo hadda haddii uu shacabkii reer ogaadeeya yidhi oo qabiil hebel baa ila dagaalamaya qabiil hebelna waan heshiinay qolo heblena waan heshiinay wuxuu uga bartay soomaalidu arrimaha uga bartay inuu qabaa'iladooda isku diro ama uu yidhaahdo qabiil hebel baa ila dagaalamaya iyaga u dhooda uu qabiil warlood ula shaqeeyo marka 15 sanadood ee hadda dagaalkan uu socday gacanka hadalka ee hubaysan reer ogaadeeya wax uu ula hadlay ma ayna jirin ama qabiil ha noqoto ama cid kasta ha ahaato duuni qaato kasta wuu laalushay waxa weeyaan kuwa u shaqeynaya hadda noocaasa oo ayada ku yimid taasi ma shaqeynayso waxa weeyaan wuuna ogyahay inayna shaqeynaynin laakiin waa nin biyo qaadeen xunbaxu iskaygu maanta taagan yahay taliya Malla Zanaawi mahadsanidkaasi waxa uu ahaa gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeynaya mudane Maxamed Ismaaciil hoggaankeena sare iyo horseedkii shacabkeenu inay horumar keeneen waa hubaal xaqiiqa hadafkii ummadeennu hay-adaha adduunka iyo UN ku horyaala dhaxal loo halgamayay soo hormoodkii maantaba guushii ma soo hoyin